qaar ka mid ah cuqaasha odayaasha deegaanka Goljanno ayaa soo saaray baaqay la dhaan ah oo ku saabsan biyo la'aan ka jirta deegaanka Goljanno iyo deegaanada ku hareersan waxayna si gaar ah ugu baaqeen qurbajooga deegaanada Sool Sanaagicayn inay la soo gaaraan gurmad dhanka biyaha ah odayaashan oo arrimahaasi ka hadlayaan waxa hadaladoodii ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan bixinaynaa warbixin kooban oo ku aadan wacyiga dhacay iyo xaaladaha deegaamadan la yimi sida ay yihiin magaalada la yiraahdo Yeyle Goljanno maxaan ku sheegayay deegaamadan oo dhan waxa ku dhacay abaar baa dhacday abaarta ilaahay baa bixin kara laakiin waxaanu sheegaynaa sida wax ku yihiin iyo arrinkeedu sida uu yahay mee dhulka waxa hadeerto macnaha wixii naflay ahaa naflaydu waa dhowr qaybood waxa mawaashigi iyo xawayaankii duurjoogta ahaa labadiiba gabaabsay hadda ku jiraan dadkiina uu ku daba dhowyahay haddana ilaaha subxaanahu wa tacaala wax baray ama nimcadiisa loo bartay wax la soo gaadhin aad iyo aad baa loogu jilicsan yahay ilaaha subxaanahu wa tacaala baa waxaan weydiisanaynaa wixii ummadiisan iyo makhluuqan uu abuurtay baray wixii kale ee islaamnimo iyo ehelnimo iyo dee wax ku qaban karana dee waa waqtigii la yidhi ha laysu dhaqaaqo ha laysu gurmado intaasaan ku soo koobayaa salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasallam marka ugu horreysa ilaahay baa mahadle alxamdulilah ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan halkan ka soo gudbinaynaa sidaa uu odaygu sheegay cabdi siciid xaaji ege warbixin baanu halkan ka soo gudbinaynaa warbixintaasoo ku saabsan xaaladda maanta jirta ee waddanka abaaraha iyo biyo la'aanta xaaladaasu dee waa loogyahay idinka qudhiinnu warka waad haysaan oo maaragtay dadka dibadaha iyo qof kastoo maanta Soomaaliya meel kasta jooga xaaladda Soomaaliya maanta wuu hayaa gaar ahaan annagu haddaanu ka warbixino deegaanada tan aan joogno iyo nawaaxidan aan joogno magaalada Goljanno kuwa nagu dhow Yeyle Eegaag inta nagu dhow ama waddankanba biyo la'aan baa ka jirta biyo la'aan xoog leh oo baaxad leh baa ka jirta abaaraha ka jira xayawaankii bahalihii baa hataa iska soo galay magaalooyinkii doofaarkii daayeerkii xayawaankii baa markuu haraaday oo dee dhibaato qabsatay buu iska soo galay magaalooyinkii iyo u soo galay dadkii marka dhibaatadaas ayaa jirta baahida biyo la'aanta iyo abaaraha baa jira waxaa kaloo jirta dhulka waa laga guuray oo dhulka kan magaalooyinka kan dadkii reer miyiga ahaa waa ka guuray dadkuna waa isku nool oo dadka reer miyiga iyo dadka reer magaalka waa isku nool waa laga guuray oo xoolihii xitaa neefkii maartay daabax ahaa ee magaalada la keenayay ama koombadii caanaha ay la keenayay ilaa dadku waa isku noole waa ka dhaqaaqay dadkii reer miyiga ahaa hawdkaas oo hogla ka de'een baa la aaday iyo ilaa Itoobiya baa hadda la sii gelayaa marka warbixinta ayaan u soo gudbinaynaa dadka islaamka ama dadka Soomaalida ama dadka maartay jaaliyadaha ama dadka samaha jecel maartay hay'adaha samafalka baanu warbixinta ayaan u soo gudbinaynaa iyo dawladaha iyo maamuladaba aan insha Allah taala ilaahay baa cawashada oo loo cawdaa laakiin warbixinta intaas ayaan u soo gudbinaynaa assalaamu calaykum bismillaah aniga oo ka warbixinaya xaaladda ka taagan maanta deegaamadan Goljanno iyo Yeyle iyo nawaaxidiisa abaaraha ku sugan ee haysta iyo roob la'aanta marka aan tilmaamo 6 bilood wax raxmada ma helin ismana dul taagan dadkii iyo dunyadiina aad iyo aad ayay u qabaan baahi roob la'aaneed daaq la'aan biyo la'aan intaaba aad iyo aad ayay ugu liitaan ugu jilicsan yihiin dadka iminka xoolaha wixii soconayay waxay galeen safar ee talaabsanayay waxaana meeshiiba iska qaadi waayeenoo ay tuman yihiin marka halkaa waxaa ka taagan abaar roob la'aaneed baa ka taagan waxaa ka taagan biyo la'aan baa ka taagan waxaa ka taagan akal la'aan aanu dadku noolaan karin biyo la'aan lama noolaan karo
akalaana ma noolaan karo intaasoo dhibaato ayaa ka taagan ilaahay baana inaga saari kara marka hay'adaha samafalka jaadeedaha dadka islaamka ee deeqda bixiya waxaan faraynaa halkaa waxaa looga baahan yahay taakulo waxtar ayaa looga baahan yahay degdega hadalkayga waxaan ku soo ururinayaa waxaa loo baahan yahay dadka taakulo u baahan yahay